kulamo siyaasadeed ayaa ka socda gudaha magaalada Muqdisho kaasoo inta badan ay yeelanayaan xubnaha mucaaradka ee la magac baxay golaha mustaqbalka Soomaaliyeed. kulanka ugu horeeya ayaa waxa uu dhex maray xubno siyaasiyiin ah oo ka soo jeeda deegaanada Galmudug kuwaas oo ka tirsan golaha mustaqbalka ee Soomaaliya. kulankan ayaa ahaa mid si weyn isaga xog wareysanayeen siyaasiyiintan ku abtirsan Galmudug isla markaana ay ku falqeynayeen xaaladda abaaraha, doorashada iyo siyaasadda ee deegaanada maamulkaasi Galmudug oo ay ka soo jeedaan. kulankan oo isugu yimaadeen xubnaha golaha mustaqbalka Soomaaliyeed ee ka soo jeeda Galmudug ayaa looga hadlay xaaladda abaaraha iyo siyaasadda ee ka taagan deegaanada maamulkaasi. kulankan ayaa lagu dhageystay warbixino la xiriira abaaraha guud ahaan dalka gaar ahaan deegaanada Galmudug waxayna isla qaateen in laga qayb qaato dadaalada lagu gurmanayo dadka ay abaaruhu saameeyeen. xubnaha golaha mustaqbalka ee ka soo jeeda deegaanada Galmudug ee kulankaas ka qayb galay ayaa adkeeyay mowqifka golaha ee ku aadan doorashooyinka maamul goboleedyada gaar ahaan Galmudug iyagoo isla qaatay in si degdeg ah Galmudug looga qabto doorasho ku saleysan dastuurka dowlad goboleedyada ama dowlad goboleedka Galmudug iyo mabaadi'da dastuurka federaalka ee Soomaaliya kaas oo kala soocaya awoodaha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada. xubnaha ayaa cadeeyay mowqifkooda ku aadan doorashooyinka halka dhinac ah ee la sheegay in laga qabanayo deegaanada Galmudug iyagoo hoos ka xariiqay in aysan ogolaan doonin nooc kasta oo doorasho ah taas oo baalmarsan sida la sheegay dastuurka dowlad goboleedyada iyo mabaadi'da dowladda federaalka Soomaaliya ee ku saleysan dastuurkii 2012. arrintan waxay ka dhigan tahay in golaha mustaqbalka markan ay kala baxeen isla markaana deegaano iyo maamulo loo kala shiraya markan. xubnahan ee ka tirsan golaha mustaqbalka ee ka hadla arrimaha Galmudug waxay ka soo jeedaan dhammaan deegaan maamulkaasi waxaana ay kala yihiin ra'iisul wasaare hore Cabdi Faarax Shidoon Saacid, ra'iisul wasaare hore Maxamed Xuseen Roble, ra'iisul wasaare hore Xasan Cali Khayre, musharax madaxweyne xildhibaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, wasiir hore xildhibaan Cabdullaahi Abuukar Carab iyo sidoo kale musharax madaxweyne Galmudug Dr. Maxamed Aadan Koofi. dhammaantood waxay isku raaceen in la qabto xilligan doorashada Galmudug oo ku saleysan dastuurka maamulkaas iyo kii 2012 ee dastuurka dowladda federaalka Soomaaliya. sidoo kale waxaa la filayaa in iyaguna kulan ay yeeshaan xubnaha golaha mustaqbalka ee ka soo jeeda deegaanada Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle taas oo ka dhigan in markan ay bilaabeen siyaasiyiinta deegaanada iyo degmooyinka kala duwan ka soo kala jeeda ee golaha mucaaradka ku jira in la cadaadiyo dowlad goboleedyada muddo dhaaf ku jooga si doorasho ay u qabsadaan halkaasna ay uga dhacdo doorasho ay iyagu ku qanacsan yihiin ama ugu yaraan dhexda taala oo mid ka saaxiiba jaanis u heli karo in doorashadaas uu fursad ka helo ama uu ku guuleysto. dhinaca kale hogaamiyaha maamulka Puntland Siciid Cabdullaahi Dani ayaa dhankiisa la filayaa in isaguna kulan uu la qaato saacadaha soo aadan madaxweynihii sagaalaad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. kulanka Siciid Dani iyo Farmaajo ayaa ah mid si weyn ay isaga xog wareysanayaan xaaladaha guud ee dalka iyo arrimaha doorashooyinka siyaasadda taas oo Farmaajo ka maqnaa dhowrkii kulan ee mucaaradkii madaxweyne xasan ku dhex maray Villa Soomaaliya. Dani ayaa Farmaajo u raadinaya hal qodob oo ah xoojinta awoodda mucaaradka sababtoo ah imaanshiyaha Farmaajo ee golayaasha siyaasadda iyo arrimaha lagu falanqeynayo doorashooyinka waxay awood dheeraad siinaysaa xubnaha mucaaradka ah maadaama intooda badan hadda ay yihiin isla xubnihii shalay la dagaalamay Farmaajo maantana xasan la dagaashay yihiin haddana isla Farmaajihii shalay ay diidanayeenna maanta weli uu banaanka joogo oo xitaa hal mar uusan ka soo muuqan kulamadii kala duwan ah ee mucaaradkii dowladda dhex maray. la socda Himilo Somali TV wixii xogo iyo warar ku soo kordha kulanka Siciid Dani iyo madaxweyne Farmaajo tan iyo kulan dambe nabadgelyo. internet plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah ku hadal iyo IPTV ula socda rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal. internetka guryaha ku shubo $25 oo hel internet xawaarihiisu yahay 20 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah ama ku shubo $30 oo hel internet xawaarihiisu yahay 30 megabyte per second iyo 200 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ah. internetka xafiisyada ku shubo $50 oo hel internet xawaarihiisu yahay 55 megabyte per second iyo 400 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha ama ku shubo $90 oo hel internet xawaarihiisu yahay 110 megabyte per second iyo 700 oo daqiiqo oo ku hadal gudaha